السلام عليكم. كل وعنا أصحابي كسو دوادا قالين كمانتا إيا مقال عصوب فضلا حدياتك عصوب تاي جنالك سبسكرايب صار سينا شير جراي حكي لايون لايك تسي ديرجلنا وقو نقطو مع سندين أصحابي مقال كينا مانتا waxaa idinku soo gudbin doonaa kadib markaan ogaanay dhammaan wixii qayaana ahaa ee Cusmaan adeerkiis u geystay juska koobaad iyo isagoo oo waliba isku dayay inuu adeerkiis wax fahansiiyo laakiin madax adeeg badan uu kala kulmay adeerkiis waxaa xukunka adeerkiis u dhaafay aabihiis Ertugal Gazi si uu go'aan kaga gaaro markii uu qooniye ka soo laabto hadda Ertugal Gazi waa uu ka soo laabtay qooniye maxaas uu ku sameyn doonaa doondaar mise laga yaabaa inaan aragno iska horimaad iyo madax adeeg u dhaxeeya Ertugal iyo walaalkiis ka yar ee doondaar mise waxyaabo kale ayaa dhici doona waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa kadib markii ay furteen qalcadda jabkii ugu horeeyay ee Cusmaan iyo qabiilkii ku dhacay dagaal xoogan oo kaga yimid dhinaca Binzanda macluumaadyo intan in ka badan waxaan idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan فضلاً نالدا ميسو كدب سولابشada Ertugal waxa dhacaya isla xisaabtan balaaran oo dhinaca qayaanolayaasha ah iyo isaga oo dhaxeeya waxaana ugu muhiimsan oo ay dhammaan daawadayaasha sugayaan tan iyo asaga walaalkii ka yar dhaxmari doonta ninka lagu magacaabo doondaar kadib markii uu doondaar qiyaamay Cusmaan iyo qabiilkiisa dhowr jeer dhacdada kale ee aan sugayno waxa ay tahay asxaabe in Ertugal uu aad u amaanay Cusmaan intii uu qooniye ku xanuunsanaa guulaha iyo geesnimada Cusmaan uu sameeyna ammaan weyn u soo jeediyay waxa isbedelay qabiilka inta uu qooniye ku maqnaa waxa ay sii waayeen geesiyaal badan wiilkiisa Cusmaan waa uu guursaday isagoo ugu dambeyn qalcadda furtay dhinaca kale duulaanka Binzanda uu ku qaaday qabiilka iyo dhacdooyinka ugu horeeya ee juska labaad ayaa ah wax xiiso badan waxa dagaalka Binzanda hogaaminaya ninka lagu magacaabo Sidkirish Adamir taas oo ku jilaya doorka hogaamiyaha Galadios waana gacanta midig ee hogaamiyaha qalcadda iyo Nicola Cusmaan dagaalkaas waxa ku dhacaya jab weyn waxaa la aaminsan yahay arintaas inay caddahay dhaqdhaqaaqa ciidamada Binzanda oo ka xoog badan kuwii aan hore u aragnay macluumaadyo intaan in ka badan waxa idinku soo gudbin doonaa muuqaalka xiga fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkeena subscribe saar siina share garay like ta ka ilaawin si dhiirgelin ugu noqoto mahadsanidin nabadgelyo